بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما isweydiisay su'aashan yaa bilaabay dugsiyada nidaamiga ah madrasadaha ama iskoolada ilaa heer jaamacadeed. Haddaba muuqaalkan gudihiisa ayaan kaga warrami doonaa qaabka iyo ciddii ka dambeysay. Magacaygu waa Khadar Maxamed Ibraahim. xilliga salaajiqadu ay la wareegeen dawladda dhexe oo ay dhulweynaha Muslimku u gaadhay badanka qaybaha bari ayaa waxa la soo sheegay inay dhulkaasi ku soo baahin shiico habaaran oo baatiniin leeyahay kuwaas oo muujinay inay muslimiin yihiin laakiin urka gaala ka ahaa oo diinta islaamka iyo dadkeedaba dagaal xun ku hayay kuwaas oo ka soo faafay dhulkii ay ka talin jirtay dawladdii Faris ee muslimiintu ay awoodda kala wareegeen isla markaasna ku sii faaftay ilaa Shaam iyo Masar iyo waliba galbeedka muslimiinta iyagoo awood ka helayay firqooyinkii la wareegay dhul ballaaran oo muslimiintu leeyihiin sida qaramidadii iyo dawladdii Ubaydiyiinta oo iyagu isku magacaabi jiray ama isugu yeedhi jiray Faatimiyiin kuwaas oo ku beeray ugxan hoosta ka sii faafaysa Sultan Al-Barsalan oo aad wada taqaanaan dadkaasi diinta qaloocinaya ee xambaarsanaa afkaarihii ay abuureen cadawiyadii diinta siiba majuusiyiintii ama dabcaabudkii laga adkaaday oo doonayay inay mar labaad soo ceshadaan dawladoodii awoodda badnayd ayaa dagaal xoog leh ku qaaday oo dad badan ka laayay laakiin wasiirkiisi lagu naanaysi jiray nidaamu dawla ama nidaamul mulki magaciisa saxdina wahaa Xasan bin Ali bin Isxaaq bin Abbas ayaa u sheegay dagaalka gacanta ahi inuusan sii soconayn oo markuu sultaanku dhinto ama dawladda salaajiqadu dhacdo ay mar labaad soo laabanayaan dad fikradii qaba oo isqarinayay oo awoodda muslimiinta la wareegaan iyaga oo ka faa'iideysanaya jahliga ummaddu ku sugan tahay sidaas daraadeed wuxuu soo jeediyay in la sameeyo xarumo cilmiga diinta iyo adduunkaba lagu barto oo dawladdu maal gelinayso loona xulanayo macallimiin karti aqoon iyo akhlaaq leh kuwaas oo ay ka soo baxayaan arday aqoon leh oo ummadda garaadkeeda iyo aqoonteeda kor u qaada markaasuu sultaanku ku raacay taladaasi wanaagsan oo awood buuxda u siiyay inuu dhiso xarumo cilmiga lagu barto oo dhaqaale badan loo qoonteeyay markaasna nidaamu dawla wuxuu sameeyay xarumo ama dugsiyo iyo jaamacado lagu barto aqoon heer sare ah wuxuuna u xushay macallimiin caan ah oo cilmiga diinta iyo kan koonkaba yaqaana wuxuuna ahaa ninkii ugu horeeyay ee sameeyay habka adduunku maanta ku socdo ee ah dugsiyo joogto ah ilaa heer jaamacadeed gaadhaya oo ay ardaydu hadba marxalad uga gudbayso oo haatan loo yaqaano dugsiyada nidaamiga ah magacaas waxa watay buug uu qoray uu kaga hadlayay dhaqanka laga doonayo hogaamiyaha dawladda boqoradii horena waa ay baran jireen oo ka faa'iideysan jireen Allahu naxariistay nidaamu dawla wuxuu ku guuleystay inuu soo saaro ummad aqoon iyo garaad sare leh oo diida afkaarihii habowga ahaa ee shiicada habaaran abuureysay sidoo kale wuxuu soo saaray shacab iyo culimo wacyi leh oo mar walba garab taagnaa khaliifadii muslimiinta oo ahaa astaan u taagan midnimada ummadda islaamka sidaas daraadeed khaliifadii dambe ee islaamku waxa ay yeesheen awood weyn oo waxa ay heleen shacabkii oo culimadii hogaaminayso oo markii lagu soo aabiyoodo kacdoon iyo dagaalba ku taageera iyaguna waxay ahaayeen hogaamiyayaal diin iyo akhlaaq leh oo shacabkooda garab taagan habkii uu nidaamu dawla aasaasay wali waa nool yahay oo habka waxbarashada dunida lagu dhigto ee joogtada ah ilaa heer jaamacadeed gaadhaya isaga ayaa aasaaskooda lahaa habab waxbarasho oo kale waa ay ka horeeyeen oo waa ay jireen balse waxbarashada joogtada ah oo dawladuhu maalgeliyaan ee ay gacanta ku hayaan buu isagu sameeyay